maxaabiistii la qabtay waxaan dareemayaa inuu jiro meel ka dhacyo xabsiga ka dhacay arrinkaasi waa khalad weeyaan ciddii samaysay gacantaa lagu hayaa cid kasta oo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لحد ملك سادون كاكا جوكتا سودا دوادا مرة واحدة مغال عصب وقت كستا أي كوتا هاي وعنو وناكسن ولا لك ورد آدم هل كان قدام صابرتون كلنا يوتيوب كارير يوتيوب هديات كم يتعال سحابتنا نقول عصب إماتو أي نوجه رئيسو كنال كسبسكرايب نوصار سو كلا مغال كنا لايك جري أو شير جري أو لو داك سحابت هذا سو كلا فكر كاي يعرف تاس كتير نحكي قوسه أنا نقول ربطو واحد شريط ديو في رمضان أو مقالة دسمة الله وتعوضا أنا هذا يوتيوب كي سبسكرايب وهاين لكن iska daawadon muuqaaladeeda oo aan like garan xitaa oo aan subscribe saarin dadkaas karan maayo waxay uga badan tahay laakiin waxa laga yaabaa xitaa if aan subscribe meesha ku taala inaan garanayn subscribe falaada yar halkan idin ka muuqata dhac oran doonta falaadaas inaad yareeyo noo taabta soo kale muuqaalka hala la gareeyo soo muuqaalkan meel dheer u gaadho waayo mama Soomaaliya waxa tidhaahdaa dhawaaqna meel dheer buu ku dhaca dhagaxna meel dhow waxaan doonayaa asxaabta qaaliga inaan isku taagno ninkii firdhiye oo wada taqaanaan waxa weeyaan ninkay huwantu dooratay ee madaxweynaha dooratay ninkaasi oo madal public ka sheegay in maxaabiista Soomaaliland laga hayo ee ay gacantooda ku hayaan ee gacantooda ugu jira in si fool xun oo taadi ku dheehan tahay ay ula dhaqmaan isaga public ka sheegay wala uu leeyahay dadkii maxaabiista sida fool xun la macaamilay ama ula dhaqmay maxaabiistii la qabtay waxaan dareemayaa inuu jiro meel ka dhacyo xabsiga ka dhacay arrinkaasi waa khalad weeyaan ciddii samaysay gacantaa lagu hayaa cid kasta oo lagu arkana gacantaa lagu dhigayaa sarkaalkii ku lug yeesha isagana tallaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadaya haynaga carshaynina gobonnimadii aynu muujinnay ee aynu ku badbaadinay boqolaalka maxbuus ee Soomaaliyeed okay wadaawata si fiican waad uga bogateen dabcan ninka kan waa ninkii u sareeyay horta madax meel ka sareysa oo la taabta ilmaha Real Mujira waa maya Soomaha ninkani waa ninkii madaxweynaha doorteen waa ninkii ay ku yiraahdeen hogaami waa ninkii ay ku yiraahdeen adiga garowdeeno ah ninkani kan hadaba madal public oo la wada joogo intuu microphone qabsado waxa uu cadeynaya in maxaabiista Soomaaliland laga hayo ee gacantooda ku jira inaan si wanaagsan loola macaamilin oo si fool xun loola macaamilo horta adigu kuma sugayo dadkaas maxaabiista fiican ay loo macaamilaan habeenna kuma seexan maalinna kuma soo toosin sababtoo dadka ay yihiin baan ogahay waxaan ogahay inay yihiin dad qabayaala waxaan ogahay dad xitaa bini'aadanimada yani in yar wax ka yaqaan inay yihiin anigu runtii ma qirsani sababtoo ah Somaliland waxa ciidan bay gacantooda ku jira maxaabiis ah oo iyaga ay ka hayso oo ku dhawaad boqolaal ku dhow siyaasiyiinta Somaliland qaarkood baa ku booqanayay jeelalka lacag iyo dhar iyo macawiis iyo sidoo kale go'yo iyo wax walba u baahan yihiin u geenay oo kamid yahay siyaasiga magaciisa la yiraahdo Alaam Musta'an ninkii qabyatire siyaasi qabyatire nin rugcada Somaliland siyaasadeeda in badan ku soo jiraya oo ganacsadeed markay isku bedelay ku booqanaya jeelka weyn ee magaalada Hargeysa maxaabiista si fiican ula macaamilayay si fiican ula dhaqmayay sidoo kale dadyoga ku xidhan jeelka ay reer Somaliland markaad wareysato ama markaad maalmaha la booqanayo qaarkood aad u tagto isniinta oo kale aad wareysato tiraahdo maxaabiista laga hayo يعني dadka laga soo qaabtay gobolka Laascaanood bal ka warasay loola macaamilaa war anagaba waana dhaamaan bay ku leeyihiin dadkaas anagaba waana dhaabaan hay'adaha gacanta ugu jiraan hay'adaha wax walba noloshooda arka fargareeya meesha wax way ku bartaan quraan bay ku bartaan soo kala farsamada gacanta ay ku bartaan waxyaalo noocaasiya baa jira hadaba waa dawlad iyo dad aan oran karo waa dad huwana oo runtii ku midoobay inay dulmi sameeyaan marka la isma barbaray karo Somaliland saasoo la macaamilaysa iyo wana la macaamilayaan wani ka arkaya in maxaabiis tamid kamid ah habeen bal la baxayo habeen la soo bareynayo bishaas oo yani iyadoo lafteed caafimaadka shaqo kale oo runtii dadka dhaawacyada iyo midadka guriga kamidna ay maalinba mid cusub ay soo helayso shalay mid la dilay ama shalay meel aad martay oo shalay toolay aad dhaawac iyo mid aad ka qaaday
sidee bay suuragal ku tahay inaad shalay beri markaad martaana aad mid kale oo cusub aad ka hesho tusaale ahaan maanta meel halkeera maray mid baan ka helay agagaarkiisii oo dhan waan wada eegay waxaan ogaaday inaan mid kale aan weli kan kaliya tuu yaalo baraan ku soo noqday waxaan ugu yimid cusub oo yimid xaguu ka yimid cirku ka soo dhacay masamadu ka soo dhacay waan dareemi karnaa in maalinba maxaabiista qaar lala baxo sida doonana laga yeelo bisha casna ay soo ururiso marka waa ciil qabayaashaas qaabkaas ugu la dhaqmaya ciidanka gacantooda u galay horta ninkii halkaa tegay iyaga gacanta u galay maxaabiis ahaan gacanta ugu galay horta ilaahay ka soo badbaadiya oo nabad kaga keena waa leeyahay laakiin dowladda Soomaaliland waxa uga meel yaala maxaa uga qorshe ah maxay doonaysaa inay yani talaabo noociye ku qaato Soomaaliland ciidamadeeda qaranku waa ciidamo u tababaran inay xuduudda Soomaaliland sugaan waa ciidamo u tababaran cadow kasta oo kusoo duula oo dalkooda kusoo weerara inay iska caabiyaan oo ay ka hortagaan iyagu intii hore ciidanka qaranku waxay muujinayeen tudaale waxay muujinayeen waa shicib waxay muujinayeen waa maati waxa meesha la ascaano degan intaas oo dhan bay muujinayeen haddaba maatidii iyo shicibkii ay tudaalaha u muujinayeen markii ciidamada qaranka la soo jabiyay ee ay dadkii maatidii soo dhex mareen damaatidii baaba ka dhex bilowday oo hooyooyinkii baaba dad burbureynayay oo dadkii geeljireyaasha ahaa baaba ka qabanayay moogtay marka wadad noocaas u dhaqmaya marka waxay jiraan maamada Soomaaliyeed goos abeeso guntu ka xiriirsan yahay goos abeeso guntu ka xiriirsan yahay marka yaryamay waxay ka midaysan yihiin inay dhabar jabiyaan ciidanka qaranka dadkii la noolaa ciidanka qaranka wax la cunayay wax la cabaayay wax walba dowladda Soomaaliland ciidanka qaranka gaarsiiso la qaybsanayay ayaa dhabarka ka toogtay taas waa taa oo deegaamadii ka sokeeyay oo dhan goojacade sayogori arcadeeye guumeys waxa soo dhan dad baa degan dadkaasi markii hore waxay dad Soomaaliland automatically markii Soomaaliland ciidankeeda la soo jabiyay iyagaaba dadka qabanayay marka taas waa taa adi way bi meel gudub isku yimaadaan ninka fardhiya waxa uu cadeeyay ugu dambeyn in maxaabista si foolxun ay ula macaamilaan waana wax taariikh qoraysa dawana la iskaga iman doona waana la iskaga daba iman doona geesigu sidiisaba ma jaba laakiin waa leeca insha Allah recovery fiican bay ciidanka qaranka Soomaaliland soo qaadan doona dhiig cusub lagu shubi doona meel walba oo huun joogto oo bari culus ay joogtana runta fiican ilmaade reyaalow ciidanka qaranka fadhiisin oo noqon doona taa markan ka imaado reer Soomaaliland muuqaalkaygan hadii aad intaan daawanaysaan dhalinyarada reer Soomaaliland buu muuqaalkan khuseeya wiil kasta gabadh kasta oo muwaadiniin ah oo ciidankeeda qaranka la dareen ah waxaan doonayaa WhatsApp-kayga ayaan biin ku soo qabanaya commentiga ugu sareysa commentiga ugu sareeyaan biin ku soo qabanaya WhatsApp-kayga qofkii doonaya ciidanka qaranka Soomaaliland inuu runtii caawiyo markan ku leeyahay caawiyo waxa horta waa dawlad badanay laakiin waxa jira dad fara badan oo dhaawac oo ciidan ah oo dhakhaatiirta ku jira dadkaasi waxa laga yaabaa qaarkood inay burca ka yimaadeen qaarkood inay boorama ka yimaadeen qaarkood inay salal oo boorama ka shaqeysan ka yimaadeen qaarkood inay ceer gaaba ka yimaadeen ciidamada qaar baa laga yaabaa inay la sacaanood ka soo jeedaan deegaan ahaan iyo hayb ahaan waxa laga yaabaa intaaba inay ka duwan yihiin oo ciidamada qaar mi ay ka yimaadeen oog ay ka yimaadeen qaar baa laga yaabaa inay gaashaaba ka yimaadeen marka dadkaasi ciidamadaasi cid noloshoodii ilaalisa oo xafida oo haya ma jirto waxaan doonaynaa inaanu sameeyno gudi dhalinyar ah oo ciidamada noocaasiya waxa ay u baahan yihiin ka caawiya hadii ay u baahan yihiin in la seexdo hadii loo baahan yahay in la hayo hadii loo baahan yahay in cunto loo sameeyo hadii loo baahan yahay in dhakhaatiirta waxa uga baahan yihiin hadii dawlad tahay hadii wax walba tahay in loo qaado waxaan doonayaa dhalinyar noocaasiya insha Allah haduu Ilaahay raahdo inaan abuuro oo aan sameeyo dhalinyar activity firfircoon oo ciidankooda qaranka la dareena marka biima soo saaray WhatsApp-kiga qof kasto arinkaas diyaar u ah waxaan doonayaa hiliyooba nala garab taagan qofkii hadal nala garab taagan qofkii fikir nala garab taagan qofkii dhaqaale nala garab taagan qofkii xoogiisa nala garab taagan inuu WhatsApp-kiga igala soo xiriiro oo aynu ciidankeena qaranka ilmaadeerayaal u guntano dawladda Soomaaliland waxaan leeyahay ilmaadeerayaal ciidankeena qaranka la dareen noqda waxyaalihii dhacay iyo wax walba oo kharimay oo de yani si kala noqday gadaal baynu ka sixi doonaa
حالة الفيديو ما سود دياري فيديو قد دفر بدنا وإحنا أركي في كومنتيات إسكت شفاي ولا هاي إن ما دير يقول لك حقيقة وكهذا تذكر حركة على هايين iska aamus waxaas oo kale ha soo hadal qaadin runta inaan isku sheegno wixii waaqaca jira ka wada hadalno waa waxaan walaalan ku nahay waa waxaan ku midownay waa waxaan doonayno inaynu dal ku noqono laakiin hadii dhaleecaynta iyo waaqaca jira ay naga xun aynu ka aamusno ilma adeerayaal goormaynu run isku sheegina ma been iyo propaganda iyo hasaawo been bay isku wadnaa runtu way qaraadahay laakiin isku dul qaata runta markii isku sheegino aad ba maasantiin muuqaalka iyo muuqaalka xigeen ku kulano iyo walaalka wardaadana oo la YouTube ka subscribe la saaro dadka muuqaalka la like gareeyo hala share gareeyo fikir aragti waxaad ka qabtaan sida muuqaalkan iyo muuqaalad kale xaq hoose nagu raga aad baad mahadsantiin